الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين dhammaan marti sharafta qeybaheeda kala duwan ee halkan ku sugan ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka haddii aan ka codso adeer Suldaan iyo maama Safiya iyo maama Seynab raalli ahaw maamada qiimaha badan aad ay qiiro noo gelid markay noo qudbeynayday marka waxa waaye sidoo kale hablaha iyo wiilasha aadka u quruxda badan oo kulanka fadhiya dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxay noo tahay maalin weyn oo aad u qiimo badan maaragtay dadka qaar laakiin waxaa laga yaabaa inay dheeldheel u haystaan laakiin annaga ahaanteena aad ayay noogu qiimo badan tahay maalintan hal qof oo xisbiga UPD kusoo biira maaragtay aad ayay noola weyn tahay waxaan leeyahay xubnaha cusub ee xisbiga kusoo biira maantay waan soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlayo oona kana mas'uula maaragta dhammaan bahweynta UPD meel walba ee joogta afkooda ku hadlayo oo ugu horeeya madaxweynihii hore ee maaragta gudoomiyaha xisbiga mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada sharaf iyo maaragta karaama ay noo tahay inaan soo dhaweyno qalbi furan iyo waji furanba intaba ku soo dhawaada waxa aan sheegi lahay dhammaanteen ma aqaan warqada soo buuxso xagga uga soo tago warqadii sababta uga soo tago waxay tahay dadkii yaa sheegay waxa sheegi lahaba marka waxaa isdhahay warqada ma ka qashan mise waa ka soo qashtay marka waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin kaliya waxaan rabaa hadalkayga anoo igu dheeraynaynin inaan ku soo koobo xisbiga maaragtay ama aadaafta xisbiyada siyaasadeed si guud ahaan aad ayay muhiim u tahay bulshada ahaan iyo maaragtay iyo dhalinyaro ahaanba markii loo eego xisbiyada siyaasadeed waa akademiyad soo saarta maaragtay siyaasi waxtar leh ama cid walbo bulshada maaragtay rabta inay hogaamido oo markaasna asagoo maaragtay dhan walbaba maaragtay waxtar laga soo eegay bulshadana ay taqaano ninkay maanta ay dooranaydo ama maaragtay codkeeda inay siida rabto waa meel lagu tarangareeyo siyaasadda waa meel lagu tarangareeyo dimuqraadiyadda waa meel lagu tarangareeyo maaragtay ninka maaragtay waxtar kale iyo kan aan waxtar ka lahayn intaba waa meesha lagu ogaado marka guud ahaan xisbiyada siyaasadeed waxa waa ahmiyadda ay leeyihiin waa midaas marka aan u imaano xisbiga UPD sida hore loo sheegay dad badanna way sheegeen waxa waaye waa xisbiga ugu ballaaran dalkeena ka jira waana sababeynaya xisbiga UPD dalkeena guud ahaan inta badan waxa waaye uu ka jira xarumo ayuu ku leeyahay sidoo kale magaalada Muqdisho kaliya xisbiga wuxuu ku leeyahay 4 xarun oo aad u weyn marka taas waxa waaye waxa ka dareemi kartaa miisaanka uu leeyahay xisbiga iyo micnaha uu ku fadhiyo sidoo kale xisbiga UPD waa xisbiga ugu xildhibaanada badan golaha shacabka ama marka aniga qiimeeyo ama qiimeen maaragtay ninka uu isaaniyaa la isdhihin laakiin waa wax xaqiiqo ah jirta xisbiga ugu soo dhawo maaragtay na soo gaari kara waxa maana 100% inuu golaha shacabka ku leeyahay marka waxa dareemi kartaa siyaasiyiinta oo kulmiyay xisbiga UPD ama dadka oo kulmiyay waxa ka helayda xisbiga UPD macallin oo iskool ama macallin jaamacad ama professor ka helayda maaragtay waxa ka helayda siyaasi oo maaragtay heerar kala duwan soo maray ama ka soo bilaabay min agaasimi ilaa maaragtay waxa ka helayda taliyaal ciidan waxa ka helayda janana ka helayda waxa ka helayda maaragtay saraakiil ciidan intaba xisbiga UPD ayaa ka helayda sidoo kale xisbiga UPD markii aan u imaano muhiimadda ama uu leeyahay bulshada sida hore looga dhawaajiyay waxa hogaamiye madaxweyne xasan maxamuud waa qof lagu bartay ama siyaasadda ka soo galay xagga maaragtay akademiyadda ama xagga waxbarashada ka imaaday waa qof maaragtay 20 sano u dambeeyay maaragtay dalka burburkiisa ku dhax noolaay maaragtay og ka warqaba bulshadiisa nabadgeliyo iyo maaragtay iyo inay bulshada Soomaaliyeed nabad helaan nolol helaan ka shaqeynay marka waxa waaye waa dareemi kartaa
miisaanka iyo uu leeyahay. sidoo kale xisbiga ma aha sidaa ognahay ayaan dhaweyto gudoomiye Yuusuf Madaale anagoo sheekaysanayna markuu noo imaanay daafurka xisbiga UPD wuxuu noo sheekay nina asagoo xisbiga UPD asaga ka socda iyo nin kale iyo dad kale oo xisbiye kale ka socda wuxuu dhahay nina imaaday laptop uu furtay markuu laptop furto wuxuu dhahay xisbigayga waa kana su'aal la weydiiyo waxa la xisbigaada intee xaafis ku leeyahay wuxuu dhahay laptopkayga xaafisaya marka xisbiga UPD boorasana laguma wato maaragta laptopna laguma wato waxa waay sidaan oo kale oo u raadinaya maaragta oo inga tuugtuugaya oo in leeyahay afkaarteena aan eegadeena aan in soo bandhigayna in leenahay nagu soo biira hadaa maaragta ku qanacdeen barnaamijyada siyaasadeed hadaa ku qanacdeen nagu soo biira naga mid noqda intaba aan leenahay waa dalkan Uganda hadda iniga su'aal weydiina dalkan Uganda sidaan oo kale xisbi inuu imaaday dhaaya nagu soo biira qayb naga noqda muhiimada noo leeyihiin ma aragteen ma jirto marka waxa dareemi kartaa dal iyo dibad xisbiga wuxuu rabaa bulshadeeda inuu isku keeno is aqoodaan maaragtay waxtar leh bulshada waxtar la noqdaan xubnaha dadka ka xisbiga hadaan u soo laabto awoodsiinta dhalinyarada oo dad badan maaragtay su'aal haday tiga weydiiyeen xisbiga UPD waxa ka tirsan kumanaan qof ka tirsan boqolkiiba 80 waa dhalinyaro boqolkiiba 80 waa dhalinyaro sidoo kale dadka madaxda ka ah xisbiga UPD maaragtay inta ugu badan waa dhalinyaro waxa tusaale kugu filan arrimaha dibadda xisbiga UPD dhammaantood waxa hogaamiyalka dhalinyaro maamul goboleedyada maaragta xarumaha kuleena waxa boqolkiiba 80 ama asaga 90 aan dhaho waxa hogaamiye ka dhalinyaro sidoo kale inta hadda hoolka fadhida ana wada rabin adeer Suldaan wuxuu hadaayay oo la dhaay waraa naga daayo maaragta aan farmuuqe laakiin waxa rabaa inta meesha fadhida waxa ugu badan oo meesha fadhiyo waa dhalinyaro hooyooyinkeen iyo aabbayaalkeena way fadhiyaan ayaga wayna nagu farxayaan ilmahoodii inay maaragtay dalkii iyo dadkii inay badbaadiyaan raba way nagu dhiirigelinayaan sida maaragtay hooyo maaragtay Saynaba hadaba ay halkan ka sheegaydo waxaan leeyahay dhalinyaro UPD wuxuu gartay awoodda ay dhalinyarada leeyihiin UPD wuxuu fahmay inuu maaragtay dhalinyarada yihiin kuwa maanta dalka iyo dadka Soomaaliyeed xalkooda wax ka bedeli kara waxaan leeyahay maaragtay dhalinyaro fursadaad ka faa'iideysta dhammaantiin intaan halkan ku sugan waxaan leeyahay fursada qaaliga oo halkan taala gaarsiiya saaxiibadiina sida maaragtay kuwa saaxiibada ah oo fursadan maanta ka faa'iideysanaa gaarsiideen kulanka dabo soo socda inagoo maaragtay dhagaha ka haya noo keena sida fursada uga faa'iideystaan insha Allah ta'ala dad badan ilaa 7 meeyo ayaa xisbiga soo cusubtay inay iska duwan galiyaan laakiin xaaladda dalka ka jirta COVID-19 awgiis ayaa nasabeeyay maaragtay intaan 4 meeyadan hadda halkan fadhido maaragtay waxa waaye sababay inay halkan joogaan marka waxaan in leeyahay dhammaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba shucuurteena lama soo koobi karo sidaan igu faraxsanahay inaad nagu soo biirtaan waxaan in leeyahay nu soo dhawaada annagoo maaragtay qalbi furan iyo maaragtay waji furan iyo gacmo furan anigoo igu soo dhaweynayno soo dhawaada saaxiibadiina keena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh